السلام عليكم كسر دواء برنامج كان ديرجنينتا كقروح بدن subaxdii hore marka aad soo toosto aadna soo qaadato cadaygaagii udgoonaa dabadeedna aad soo qaadato killigii biyaha ee weysada markii aad weysaysato kadib aad aqriso ducadii ahayd ashhadu an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muhammadan cabduhu warasuuluh dabadeedna aad u dhaqaaqdo dhanka iyo masaajidka markii aad masaajidka aad u dhaqaaqdo kadib markii aad masjidka gasho kadib waxaad dukanaysaa labadii rakaca ee ahayd tahiyatul masjid dabadeedna aad raacayso labadii rakaca ahayd in uu ilaahay maalintaasi khayrka ku waafajiyo sidoo kale markii aad ducaysato waxaad ku sugaysaa aayado kooban salaada aayadahaas quraanka aad salaada ku sugayso ayaa farashku furaya maalintaasi oo dhan sidoo kale markii aad dukato laba rakacadood ee salaada subax kadib ayaa ducada tan aad akhrisanaysaa ducadan ayaa lagu magacaabaa sayyidul istighfar ducadan ayaa allahumma anta rabbi laa ilaaha illa anta khalaqtanii wa ana cabduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istada'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abuu laka bi ni'mati alayk wa abuu laka faghfir li fa innahu la yaghfiru ad-dunub markaa ducadan akhrisato ducadan ayaa haddii aad maalintaasi geeriyooto jannada ayaa ilaahay inoo ballan qaaday sidoo kale ducadan kale ayaad raacsanaysaa اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وغهرة الرجال دعاء maalintaasi wax muruga ma arkaysid waa in aad si niya u tiraada ducadaasi ducooyinkaasi waa aniga Aweys Hussein Usman la socod barnaamijyada kale xiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh